wuxuu ahaa roodhi iibiye nolosha xagga hoose ka soo bilaabay. galay sabab la xiriirda inuu tiriyay gabay islaam jacayla. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Laacib ciyaari jiray kubadda cagta intaa kadibna xisbi madax u noqday. ugu dambeynna dalkii uu ku matali jiray kubadda cagta madaxweyne ka noqday. Shakhsigan saameynta intaan la eg leh ayaan ku daawan doonaa muuqaalkeena. balse marka hore muuqaalka like saa. haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir mahadsanid. wuxuu ahaa roodhi iibiye nolosha xagga hoose ka soo bilaabay. wuxuu ka soo baxay jaamacadda Marmara University. wuxuu la dagaalamay musuqmaasuqa dalkiisa. xadhig ayuu u galay sabab la xiriirda inuu tiriyay gabay islaam jacayla. sanadkii 1954 ayuu ku dhashay degmada Kasimbasa oo la jaara caasimadda Istanbul. aabihii wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Turkiga. hooyadii waxaa la odhan jiray Tansila waxay ka shaqayn jirtay horumarinta dumarka muslimiinta adduunka. shakhsigan u jeednaa waa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. madaxweynahani wuxuu aad u jeclaa yaraantiisii kubadda cagta. sanadkii 2011 waxaa dunida maca salaamaysay hooyadii halka aabihii dhintay sanadkii 1988. sanadkii 1960 ayuu bilaabay hayaanka waxbarashada. goobta uu ka bilaabayna waxay ahayd degmada Kasimbasa. 1964 wuxuu bilaabay dugsigiisii dhexe oo lagu magacaabi jiray Islamic School. qoyskoodan dhaqaale haysan awgii wuxuu suuqa ku iibin jiray roodhiga. wuxuu ahaa iskoris. 1969 ayuu bilaabay dugsigiisii sare wuxuuna ahaa dugsi xirfadeed oo diini ah. sidoo kale 1974 ayuu galay jaamacad ku taalla Turkiga wuxuuna ku takhasusay dhaqaalaha iyo ganacsiga. intii uu ku jiray jaamacadda wuxuu xariif ku ahaa kubadda cagta. sidoo kale wuxuu gudoomiye ku-xigeen u ahaa ardayda jaamacadda. isagoo jaamacadda ku jira ayuu bilaabay ka helitaanka siyaasadda. Emin Gulbaran ayay isguursadeen sanadkii 1978 iyagoo xiriirkooda jacaylku uu ka bilowmay kulan caalami ah oo uu ka qayb galay. waxay isu dhaleen 2 wiil iyo 2 gabdhood, Ahmed Burak iyo Nicmadiin Bilaal, halka gabdhahana lagu magacaabo Isra iyo Sumaya. shaqadii ugu horreysay ee uu qabtaa waxay ahayd gudoomiyaha xisbiga Islaamiga garabka dhalinyarada. wuxuuna helay shaqadan markii uu dhammaystay jaamacadda 1979. inqilaab militari ayaa ka dhacay Turkiga 1980. waqtigaa wuxuu xubin ka ahaa xisbiga daryeelka Islaamka. sanadkii 1984 wuxuu noqday gudoomiye degme isagoo matalaya xisbiga daryeelka Islaamka. intii u dhaxaysay 1985 ilaa 1989 wuxuu ahaa gudoomiyaha Istanbul. sanadkii 1994 magaalada Istanbul oo ahayd magaalo weyn ganacsigana ku fiican ayaa waxaa soo food saartay biyo yaraan iyo sidoo kale qashin meel kasta yaala. sidaa daraaddeed ayaa waxaa loo doortay duqa magaalada Rajab Tayyip Erdogan. intii uu xilka hayay wuxuu xaliyay dhammaan dhibaatooyinkii jiray waxaana u riyaaqay shacabkii. muddadii uu shaqada ku qabtayna waxay ahayd 4 sano oo keliya. gabay uu tiriyey oo ku saabsanaa islaam jacaylka ayaa gebi ahaanba bedelay jihadii siyaasaddiisa. kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. dabayaaqadii 1998 ayaa lagu xukumay 10 bilood oo xadhig ah kadib markii uu xoogaystay xisbigii cilmaaniyiinta. xukunkaasina wuxuu u dhammaaday horraantii 1999. 2001 wuxuu sameeyey xisbiga cadaaladda ee AKP. 2002 doorasho la qabtay ayuu ururkii socodka uu helay ay noqdeen 34%. laakiin taasi kama haysan dhigin ra'iisul wasaare sababtoo ah muusan haysan aqlabiyad. balse qofka Ilaahay la jiro Ilaahay baa faraj u furay. dabayaaqadii 2002 maxkamadda sare ayaa laashay doorashadii dhacday. sidaana waxaa ra'iisul wasaare ku noqday Rajab Tayyip Erdogan. sidoo kale wuxuu mar labaad ku guuleystay ra'iisul wasaaraha waddanka taariikhdu markay ahayd 2007. sidoo kale wuxuu mar saddexaad ku guuleystay jagada ra'iisul wasaaraha sanadkii 2013. 2016 wuxuu ka badbaaday afgembi loogu talagalay in naftiisa halis lagu gasho.
afgembigan oo lagu eedeeyey wadaad suufi ahaa oo ku noolaa Maraykanka. labadii 2017 wuxuu bedelay dastuurkii waddanka wuxuuna ka bedelay nidaamkii baarlamaaniga ahaa wuxuuna ka dhigay nidaam awoodda u weyn uu leeyahay madaxweynuhu. sidoo kale wuxuu mar kale ku guuleystay doorashadii taariikhiga ahayd ee dhacday 24 Juun 2018 taas oo ka dhigaysa madaxweyne awood leh. sidoo kale waxaa la filayaa doorashada xigta inuu la yimaado wajiyo kale oo cusub. sidoo kale madaxweyne Erdogan waa shakhsi ku suntan wahiilinta diinta Islaamka. haddaba waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka daawadaha qiimaha badanow. si muuqaalkani u gaadho asxaab badan oo sida adigoo kale wanaagsan muuqaalka like saar mahadsanid.